بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا وصحبه وسلم. انت magacayga muuqaalkayga taqaano ummadda Soomaaliyeed dhammaantood meel kasta ay joogaan dunida dacaladeeda. marka hore waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda alsalaam. shirkeygan jaraad maanta wuxuu ku saabsan yahay waa laba qodob. qodob waa dagaalka muddada dheer qaatay oo lagu xasuuqayo dadka maatada iyo marista Soomaaliyeed ee laascaano nawaaxigeeda. waa ka xunnahay haddaan nahay horta reer Hiiraan iyo bulshada reer Hiiraan aad iyo aad baan uga xunnahay. waxaan rabaa marka ummadda inta taqaanana way taqaan, inta aanan aqooninna inaan media uga sheego. 1898 ingiriiska markuu berbera ka soo degay, isla markaana ay isqoonsadeen asagii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan 1900 oo shacab ah. 1901diina dagaal gacanka hadala uu ka dhacay ingiriiskii iyo intii la socotay oo calalada u meyraysay iyo intii Soomaaliyeed oo nadiifka ahayd oo ka hor timid inuu dhulbahanta u weynaa. From that time oo 1900 ah ilaa 1921dii gumaysi la dirir inay ahaayeen. From that time up to now niman Soomaali ah sumadooduna Soomaali tahay, hadday dagaal qabiil tahay iyo hadday mid gumaysi tahay intaba maartay gacan adag isaga qabtay, Soomaalina ay marqaati u tahay waay. anigu waaban yaabanahayo 32 maalmood ayaa calankii buluuga ahay u soo dhinteen waalidiintii dhalay iyo wixiina wada dhalay oo dhan ay u soo dhinteen ayay mid meyraxoo la sameeyey u qaateen. waaba yaabanahay dulqaadka intaas leeg. ha yeeshee haddana maris iyo maato, mashaayikh, siyaasiyiin iyo dhaqaalayahan ayaa la kawinayey. lama garan lamana qaban ninkii dadkaas le ayaa la lahaa. meeshaas waxaa ka caddaatay jabhadda SNM barnaamijay samaysay inay yihiin dadkaas lagu laaynayo. sababto ay tahay shabaabka ay sheegayaan waa galeen ay leeyihiin. shabaabka waxaa muddo dheer ku gudbanay gobolka Hiiraan, gobolka Mudug, Galgaduud iyo Mudug, gobolka Nugaal meel ay ka geli kareen ama ay ka aadi kareen ma jirin. marka waa waxay caalamka ay uga qaadanayeen 30 sano lacagta nimanka SNM. hadda marka waxay u dhimanayaan calankii buluuga ahay dadkaas. calanka buluugana waa loo wada dhintay. aniga aabbahay waa ku dhaawacay, adeeraday waa ku dhammaadeen, walaalahay waa ku dhammaadeen. starting from the time of cruiserigii 1894 shirkii Camp David ka bacdi colonialismka waad ogtihiin inuu Ethiopiana soo galay, baddan Indian Ocean oo soo galay ayagoo ay kala wataan Ingiriis iyo Talyaani. haddaba British Protectorate Line oo ah 2 region iyo 6 region oo Italian Protectorate ah 60kii la isku daray. dan isaaq ama diyaarad dhagax saaro ama waa la xasuuqay ha yiraahdo. xasuuqaas balbaanta shuqul kuma lahayn. aniga hadda ka hadlay media ragii berbera joogaanahay, ayaanahay. maamul iyo shacab baa istidriiray. gobolada markaa Soomaaliya waxa waqooyi u ah berbera
koonfurna waxa uu ah Kismaayo barina waxa uu ah Boosaaso maamulkii jiray meel uu sana carragidin ku sameyn oona dhibaato u geysan ama oona dilin ama oona barkasan uga shubin ama mas'uuliin oona ku laaynin ma jirto ragaas marka maamulkaas isaaq 7 nin ay ku lahaayeen 7 nin ay ku lahaayeen dadka xasuuqaas genocide-ka goboladaas dhan wada gaarsiiyey waxay ku lahaayeen 7 nin waad wada ognahay idinkuna waad ogtiin dadkaas laynay dhammaantood waa saxiixa koonfur lagu laynay ama central region lagu laynay ama Soomaali galbeed lagu laynay saxiixay ku lahaayeen qabiil qabsaday ma jiro rajiimkii oo 22 sano jirsaday SSDF waa kicin weyse SNFna ma kicin USC yaa kicisa markhaati baa laysaga yahay USC ma sheegan dadaana laka laayo wadaraana loo duugay iyo dhulaana laka gubay ma dhihin idinkuna ilmihii naagayaad diyaarad meel dhagaxa u saarteen oo tiraadeen waana la xasuuqay intaad amxara hoos gasheen marka 11 qabiil oo British Protectorate Land degan ayuu isaaq hal qabiil ka yahay dadkaas oo 32 sano dusha uga fadhiyay waxa uu sii dheeraa dhulbaanta dil in hal doorka laga dilo raalli kama noqon karno Soomaalida waxaan u sheegayaa sida ugu dhaqsaha badan dadka calanka buluuga u dhimana hiil iyo hoo alla la garab istaago waxba macnaa samayn mayso runtii markaad rabtaan yaanan calanka maxmiyad la gelin dowlad baa dhexdhexaadinayso dariskaa dhexdhexaadinayo ciidan kale amni kala dhigaa loo dhigayaa ma yasiir xaaga aqli shaqayn kara ma aha taas waxay sahlaysaa maxmiyadda si degdeg inuu calanka u galo war haddii calankaas aanan u dhiman maanta waxa waaye qabiil kastaba calan uu jeexanaya taas waa midda laasaano iyo xaaladda focuskeedu waa dib taagan yahay reer Hiiraan waa meeshuu dagaalka ka bilowdo kuna dhammaado jadiidkii lahaa iyo jadiidka ma quslo waxaan idiin sheegayaa kacdoonkii guga Soomaaliya bilowday waqooyi galbeed hadda ka bilaabatay koonfurna bartamaha iyo waxay ka bilaabatay gobolka Gedo ayaga naftirkooda waa in calanka federaalka la baabi'iyo iyo isteediyada oo aan isugu nimaano calanka buluuga aan isugu nimaano calankaas buluuga aan u wada dhimanno wabilaahi tawfiiq halkani waa Shafi Media Production oo ku faraxsanahay inaad la soo booqato oo aad saaxiib la noqoto barnaamijyada aan idin soo baahino kambaleel ka furo oo subscribe-ka inoo saar annagana waxaa sharaf noo ah mar walba la socodkaaga geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiis